waa islaamnaatini magacayga waa maxaa ka daawanaysan yaaba itibaat muuqaalkan wuxuu sabsaya vlog maanta waxa arkeena sida magaaladan degana looga dabaaldego habeenka sanadka cusub oo dhalanayo sida ogsoontiin maanta waa 31 waa maalin axad baritoodana waa maalinta 1 bisha Janaayo maalinta Soomaaliyeed oo badan dhalashadooda ay tahay insha Allah sanadka soo socda xarjina dhamaanteen inuu noqdo sanad riyooyinka ama hamiga aan leenahay dhamaantood inuu wada riyoobaan haddii aad kanaalkayga subscribe saar waxa ku leeyahay subscribe leh daawasho wacan sababta dukaanka haduu maadno xitaa inaa ka iibsada cabitaan waayo caawada waxaa rabaa inaa sameyn non stop wax la fahmno sa u koro waaga la ii bariyo ka deganaan faata cabitaankii wixii dhan hadda hor u qaadana waaga la ii bariyo fahmno non stop brother akala laba xabaa soo qaatay yaani inaa ka dego shaqada ma arkino ma bareebo aara bas shaqaysan brother 12 saac kaamil adigu non stop aan qaadan aad ay u fogtaa xaafada yaani aad ma fog laakiin xogaa way fogtaa magaal xogaa way ka yar baxsan tahay qofkan ayaa qaada geena waana soo celina hadda saacadu waxay tahay waa 5tii galabnimo iyo 10 daqiiqo joogiga sidaan uu egyahay markii la gaaro maxaa la sheeg 12 ka habeenimo ama 6 saac habeenimane waxa tageena meesha laga ridayo bulleerada ugu waaweyn magaalada laga rido magaalada dhaxbartankeeda waaye meesha tageena waa arkeena sidoo joogigu u egyahay inkastoo anaka muslimiin aan u dabaaldegaynin laakiin waxaa rabaa inaan tusiyo sida uu yahay maalintooda maalinta ay sanadka cusub soo dhaweynayaan sida uu jawiga yahay inaan aragtida rabaa qof kale ayaa u socda qofkan wuxuu ii jiraa meel 9 kiiloomitir sababta qofkan uu qaadaa hadda waxay tahay yani meeshan fog ugu doonaya waxay tahay qofka ayaa soo qaada daati magaalada xoogaa meel ka baxsan ayuu keenay qofkan wadadii aan ku noqonay ayaa ka qaada ma faatay xaafad lahaay Vestra Fralunda ayaa geenaa Vestra macnaheedu waxa waa West Fralunda waa xaafad Fralunda dhahayo soo marka Vestra Fralunda qofkan geena iski waa geeyay qof kale hadana isla xaafada dhexdeeda ka qaada 1 kiiloomitir ma fahmino 1 kiiloomitir ana 1 daqiiqo oo socona qofkan asina magaalada ayuu rabaa ma fahmino qofkan magaalada ayaa geena caawo dhan saas ay u soconay adii la 2 saac caawo laga gaaraa markana 2 saac kadib hadda xaq wada Uber 2 saac kadibna iska bedelaa app kale ayaa shidanaya waayo appkaas kale ayaa ka shidan koor meeshan ayaa qof keenay kadib waxa ark meeshan quruxda badan waxa isla markaa asxaabtaada magaalada korkatus magaalada waa taasa warka doona saan meesii ahaan doonta 12 habeenimo markay gaarto bas waxba iska bedeli doono qof ayaa xaafadan keenay haddana waa ka noqonaa magaalada ayaa ku noqonaa waayo magaalada ayaa dad badan xaafadan waxa la saabadoolen dhinaca xaafada Bartil ayaa soo xigta isku day idinka xaafadaha magaalada ma arkano idin kala barbaro bari ka maalina daawada ka timaaysa oo kala taqaanid gooya meeshan ayuu ka soo baxaya magaalada ayaa geenaa kadibna oo arkeena maxaa la sheegay hadda waa caadi uu aamuso ma fahmino oo ay sheeg waxyaabo badan ma soo dhacoyin ama maxaa la sheegay dalabyo badan ma soo dhacoyin laakiin waxa kadib idaa oo bilaabanaysa sheekada qof ayaa doonaya qofkan wuxuu jiraa meel dheh 400 kiiloomitir kula 400 متر يعني حقاس أيو تاني عمل قف كان يا دونايا قال هذا جينايا بحدونا قف كليتو قف كان وحو إجرا ميل 6 كيلومتر 6 كيلومتر ميل إجرتا يا كدونايا إن عاو وحاسدا ولا أي نقنيسا شقة لكن ساس موشد ما فاهمينه لكن وحلانا إذا أنت لما وجو إن هذا ولي وحاوا 6 ساعة صدني 6 دقيقة واي أما سجالكي صدني 6 دقيقة laga yaabay hadhooti markii la gaaro ma arkino maxaa la dhahay sheeg 6 saac habeenimo ama 12 habeenimo in shaqada waaw soo noqoto laga yaabay wali dadkii magaalada u soo bixin yani hadda go'aan ma laga gaari kar ma faanta shaqada sidee tahay laakiin hadda sidee tahay xogaa mashid ma faanta laakiin laga yaabay hadhooti inay soo shidanto markii dad badan magaalada u soo wada baxaan soo arkeena aad hadhooti soo noqoto qofkii hadda waagay qof kale ayaa doonaya qofkan wuxuu dhex joogaa magaalada dhexdeeda qofkan ayaa soo qaada haddana عاودن ساس وسعناس إذا لا يجاريو لبي يتوان كهبينيمو كلا عيا وحاك دونا مال إيجرت 5 كيلومتر 6 دقيقة يعني وسعنا laga yaabay inay u maxalla oo egta inay fogta laakiin sababta uu doonayo qofkan waxay tahay mid qaana
qofkan lacag ayaa i dul saaran madaxiisa ma fahamtay haddii asiga aa qaado lacag ayaa ku helaya ma fahamtay so sidaas darteeda ayaa u doonayaa meeshuu jooga macno ma leh aniga waxa usoo baxay waxaa waaye lacag waa fahantay ma so qofkan ayaa doonaa waayo madaxiisa lacag i dul saaranta ma maqli jirta hebel madaxiisa lacag aa ii saaran sheekadaas ayay taagan tahay ma taqaanaa saaxiibayaalow in sanadka soo socda ee 2024 ee hal saac oo kaliya ay ka dhiman tahay hal saac oo kaliya ay ka dhiman tahay waa xasuustaa sanadkii ka horeeyna waa shaqeynaye oo sidaan oo kale ayuu igu dhamaaday anoo shaqeynayo sanadkan waa sidaan waayo riyo walba iyo rajo walba ka dhaweynay rabtaa ma fahantay waxaad leeyahay dhammaantiin walaalahayga oo meeshaan maaragtay ku midoonay niman yahow yaa la isdhiganina noloshaan oroday rabtaa ma fahantay noloshaan oroday rabtaa insha Allah waxa ilaahay ka baryaa maaragtay sanadka soo socda 2024 in qof waliba oo naga mid ah riyooyinkiisa ha weynaadaan ha yaraadaan in ilaahay maaragtay u rumeeyo waxay ahaataba brother riyo walba ku riyoonaysa maaragtay ilaahay ku rumeeysa taasaan leeyahay waa maanta hadee gacmiyeyga wax ku jiraan maaragtay waa awoodi kari lahaa gacmiyey wax kuma jiraan maanta wax ku dheeraa askar ma fahantay inaa ku duceeyo adina ay duceeysa mooyo wax kale maanta isku ma awood ma fahantay wax walbana wuxuu u baahan yahay dadaal dabar adeegis ma fahantay marka insha Allah waxaan rajeynaa 2024 mar kale iyo mar saddexaad in maxaa la ilaahay ma arkin oo saaxiib yaal waxa rajeynaysiin waxay ahaataba waxa rajeynays wax walba ahaatay in ilaahay ma aragtay meel aad ka filaneen oo ku soo dhig ma fahantay niyada la iska jibinin waxaan adduunyo waaye shalay waxaan haysanaa maanta haysataa maanta waxa haysataa bari way kartaa ma fahmino marka yaa lisni jibinin yaana lis dhiganin ma fahantay waxaan waa haystaa ka soo ahaysleen ma fahantay brother adoo waxaaga haysto dadaalka muuji insha Allah khayr ay noqonaysaa waxaanu dadana arkoosin ma aragtay meesha kii maadino maxaa la bulleerka laga ridaayay magaalada traffic waa fahmay gaarigeyga waa iska dhigay waa iska lugeynaa ka shaqeysan lahaa ma aragtay traffic meel walba waa jaam dadkii magaalada inay soo galeen jaam waa meel walba wax hadda ku dhax ka waran ma aaminaysaa markii la ahayd yani 12 habeenimo markay ku dhacday ilaa hadda oo 1 habeenimo ay tahay meel aad taagnaa waa dhaqaaqi kari waa jaam meel walba dad waxaa ka doonaa meel ay jirta 4 kilomitir qofkan waxa u socon doonaa muddo gaaraysa 6 daqiiqo waa waqti dambe waa 7 saac 27 daqiiqo qofkan ayaa doonaa kadibna waxa geenaa meel u jirta hadana 4 kilomitir oo kaleeto kadibna magaalada ay ku noqonaa xaafada joogana waxa la dhahaa Bartile haddana waxaa bilowda baraf saacadana waxay tilmaamaysaa 3 habeenimo iyo 40 daqiiqo barafkan
hadda waxaa jooga xaafad laa Bariqoon xaafadan zaad ayuu ku da'ayaa laakiin magaalada dhinaceeda kale markaa tagtid maba arkaysid baraf dhan ma ka da'ay ma fahantay waa isla magaalada dhexdeeda qaybna wuu ka da'ayaa qaybna maba ka jira ma fahantay soo marka taasna way jirtaa ugu dambeynna waxaa imaaday xaafadeeda saaxiibadeeda aan jeclahay oo caawa maxaa waa maantadan waa maalin isniin waa 1 bisha January 2024 muuqaalkan aan maanta daawanayso wuxuu ka kooban yahay 2 sano qaybta koowaad waxay ka kooban tahay 31 bisha December 2023 qaybtaana waxaa waaye waa bilowga 2024 maalin isniin todobada subaxnimo hal saac subaxnimo dhaaro laakiin waa todobada subaxnimo waxaan rajaynayaa dhammaantiina wixii aan rajo barafka wabiga cabsiyo wixii rajo iyo hami aan leedahay oo aan rabtid in 2024 ma aragtay ku hirgalaan in ilaahay ku rumeeyo riyooyinkaaga iyo hamigaaga aan leedahay idinkan ay soo duceeyaan ana waa idin soo duceynaya insha Allah waxaan rajaynaa haddii aad weli kanaalkayga subscribe saari doontid inta muuqaalada isku arki doono waxaan idin sidaas iyo nabadgelyo